haweenaydu iyadoo alaab kala hagaajinaysa ayaa si kama ah waxaa dhulka uga dhacday xabbo baradho ah waxaana goobtaas ku sugnaa nin tuugsada markii uu arkay wixii dhacay tuugsadigii uu soo qaaday baradhadii wuxuuna u dhiibay haweenaydii aad bay ula dhacday falkiisa waxayna u aragtay inuu yahay nin qalbi wanaagsan sidaas darteed waxay go'aansatay inay u ogolaato inuu ka caawiyo shaqada maqaayadeeda go'aankaas ay haweenaydu qaadatay ayaa noqday mid si toos ah u bedelay aayaheeda sababtoo ah markii ninku uu hilib jarjarayay wuxuu si lama filaan ah u soo bandhigay xirfad adeegsiga mindida oo cajiib ah taas oo ka yaabisay dadkii hareeraha taagnaa xirfadiisu waxay la mid ahayd tan cunto kariyaasha heerka caalami waxaa soo baxday in ninku uu bari ahaan jiray horyaalka tartanka boqorka cunto kariyaasha laakiin maadaama uu ardaygiisu ka masayray guushiisa wuxuu shaaha ugu daray sun bal xaasidkaas eeg daawada soo cajiib maaha ruux kaa masayray lama weynayo nasiib wanaag ninku wuu ka badbaaday dhagartaas balse wuxuu ku waayay dhammaan xusuustiisa sababtaas awgeed wixii intaas ka dambeeyeyna wuxuu noqday tuugsade marka loo eego sunta haddana sidan ayaa aad ugu fiican madama gabadhan uu la kulmay micnaa ku jiray dabeeto in ninku uu la kulmo haweenaydan qalbiga wanaagsan haweenaydu waxay u qorshaysay inuu ka shaqeeyo maqaayadeeda laakiin tallaabadani waxay aad uga caraysiisay madaxii cunto kariyaasha sababtoo ah wuxuu ka helaa haweenayda aragtida inay isku dhow yihiinna waxay ku abuurtay masayr sidaas darteed wuxuu qorsheeyey inuu ninka cashar u dhigo wuxuuna islamarkiiba ku amray inuu hilib jarjaro isagoo u dejiyey shuruudo adag ka hor inta uusan hadalka dhammayn ninku wuxuu hilibkii la jarjaray soo dhigay hortiisa xataa shaqaalihii kale ee u dhowaa way la yaabeen waxay ammaaneen xirfadda sare ee ninku uu adeegsaday mindida madaxii cunto kariyaasha markii uu taas maqlay ayuu si xanaaq leh hilibkii u dafay muuqaalka loofsaar inkastoo ninku shaqo fiican qabtay haddana kormeeruhu wuxuu u ekaa mid quursanaya si uu ninka u eryo madaxii cunto kariyaasha ayaa bilaabay inuu mar kale dhib u geysto wuxuu ninka ku amray inuu ukun garaaco isagoo daba dhigay shuruudo kale oo adag ma aha oo keliya in cadka iyo jaallaha ukunku ay si buuxda isugu qasmaan balse waa in qori cuntada copstick uu si toos ah u dhex istaago isku darka isagoon dhicin markaas oo keliya